السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحيران جنال كمر كلا سود وهذا أدي هذا ومحسنتين ما وقال كان وحن ربائنا ندي كل وذاقه ويل سوماليا أو شان سنة كهر ويل عدانة كدلي قلبات كمجالة كولومبوس قبل كأوهايو سوماليا أنا أبح صدي أو لسوق تي حدنا كولومبوس أوهايو لجوسو عليي halkaasi oo lagu maxkamadayn doono arintaasi waan idin la wadaagaya sidoo kale maalintii talaadada ahayd magaalada Frisco ee gobolka Texas waxa lagu xukumay nin la yiraahdo Malik Charles Anthony Davis oo sanadkii hore nin security ka ahaa masjid ku yaala magaaladaasi in ku dhex baangadeeyay isla markaana dhaawac halis ah u geystay arintaasina sidee u dhacday imise sano ayaa ninkan lagu xukumay markiisii horena muxuu ahaa maxaa masjidka loogu soo dhaweeyay arimahaasi oo ayaan idin la wadaagaya sidoo kale isla gobolka Texas waxaa jirta magaalada Dallas Fort Worth gabar asal ahaan Falastiiniyad ah oo iskuul sare maamulo looga dhigay ayaa iskuulkii waxa uu kala laabtay xilkii uu u magacaabay sababo la xiriira qoraallo ay Facebookeeda xilli hore ay soo gelisay marka hadda dacwad ayaa maxkamad federaal ah ay u gudbisay in booskeedii maamulanimada loo soo celiyo arintaasina sidee u dhacday sidoo kale waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada haddii aan ku bilaabo magaalada Columbus Ohio waxaa lagu soo celiyay oo Soomaaliya laga soo qabtay wiil Soomaaliya oo magaciisa la yiraahdo Hanuut Cabdulle wiilkan waxaa looga shakisan yahay dilka wiil yar oo cadaan ah oo magaciisa la yiraahdo Bryce Bresank oo xilliga la dilayay 24 jir ahaa waxaana dilkan uu dhacay bishii September 16 sanadkii 2021 waa ku dhawaad muddo 5 sano ka hor markii wiilkan Soomaaliga ah dilka uu geystay ticket ayaa loo jaray Soomaaliya ayaana loo diray marka hadda waxa iska kaashaday soo qabashadiisa ciidamada Marshallska oo dadka baxsadka ah oo Mareykanka ka baxsaday sida maxaabiista iyo kuwa dambiyada galo wadamo kale aaday dabagal ku sameeyay oo soo qabta iyagoo kaashanaya ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa sirdoonka ayaa FBI-da iyo booliska magaalada Columbus ayaa gacan ka geystay waxaana la soo qabtay bishii shanaad ee May hadda ayaana dib loogu soo celiyay Mareykanka halka magaalada Columbus lagu maxkamadayn doono. After a lengthy investigation, I'm ecstatic to announce that Hanuut Cabdulle is in custody. wiilkan Soomaaliga waxa la leeyahay waxa la socday wiil kale oo Taahir Saciid la yiraahdo isaguna Soomaaliya u baxsaday wiilina Soomaaliya ku dhex maqan oo aan la soo qaban marka qoyska wiilka cadaanka ah uu ka geeriyooday oo la yiraahdo Bryce Bresank ayaa waxa ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in la soo qabtay dadkii looga shakisan yahay dilkii wiilkooda aabaha wiilka dhintay dhalay waxa la yiraahdaa Steve waa ninkan aad aragtaan hooyada dhashay wiilkaasina waxa la yiraahdaa Catherine maanta marka waxa shir jaraa'id qabtay mas'uuliyiinta ciidamada booliska ee Columbus iyo ciidamada Marshallska iyo waliba FBI-da oo gacan ka geystay soo qabashada wiilkan Soomaaliga ah oo Hanuut Cabdulle la yiraahdo waxaana hooyada dhashay wiilka dhintay oo xilligaasi 24 jir ahaa Bryce Bresank oo Catherine la yiraahdo waxa ay tiri in muddo ah waxaan ku riyoon jiray anigoo cadaalad u helay wiilkayga laakiin waxa ay tiri hadda waxa ii muuqata in cadaaladaasi aan helayo waa tan hooyada wiilka dhintay Catherine oo maanta markii ay booliska si wada jir ah shirka jaraa'id ay uga hadashay kadib warbaahintu ay weydiisay sida ay u aragto soo qabashada wiilkan Soomaaliga ah la yiraahdo Hanuut Cabdulle oo looga shakisan yahay dilka wiilkeedii Bryce Bresank. Obviously, I am overwhelmed. There were many moments that I felt like it was an elusive dream in order to see justice for my son. marka maalmahan dawladda Mareykanka dadkii musuqmaasuqa looga shakisanaa iyo kuwii dilalka geystay oo Soomaaliya tagay waa laga daba tagaya isla markaana waa la soo qabanaya arintaasi haddii halkaasi aan kaga gudbo waxaa jirtay sanadkii hore bishii June 7 sanadkii 2025 masjid la yiraahdo Islamic Center of Frisco oo ku yaala magaalada Frisco ee gobolka Texas ninka security guard ka ahaa oo masaajidka ilaalinayay ayaa xilli uu doonayay masjidkaasi inuu xiro oo isaga kaliya waxa qofka uu joogay saacaduna ay ahayd ku dhawaad 1 saac iyo bar habeenimo xilligaasi aan u maleynayo in maqribka la tukaday cishihiina aan la gaarin walow saacadaha Mareykanku ay kala bedelan yihiin
in maadaama qofka ilaaliyaha masjidka dadku markay salaada jamaacada ku jiraan isagu albaabka ayuu joogaa wuu ilaalinaya marka ay tukadaan kadib ayuu tukadaa markaasi kadib ayuu baxaa marka xilli uu tukanayay sida muuqaalkan aad ka aragtaan warning this video may be disturbing to watch marka alla dad fara badan waxaa laga yaabaa muuqaalkan in aysan daawan karin laakiin waan idinla wadaagaya muuqaalkan aad aragtaan waxaa arkaysaa ninka la yidhaahdo Malik Charles Anthony Davis oo 27 jir ah waxaa lagu soo dhaweeyay masjidka wuxuu yiri homeless ayaan ahay ama guri la'aan marka meel uu seexdo ayaa la siinayay iyo cunto masjidka ayaa siinayay waxaana la barayay diinta islaamka oo in uu islaamo ayaa loo diyaarinayay marka dadkii oo idil markii ay baxeen ninkii masjidka ilaalinayay oo magaciisa Cumar Yacquub lagu sheegay ayaa waxaa la arkayaa isaga keligii oo tukanaya isla markaana ninkan la yiraahdo Malik Charles Anthony Davis inta uu galo meesha baha la dhigto ayuu dharkii iska bedelaya waxaana uu gashanayaa dhar wada madow isla markaana hoodie ama waxyaabo kale ayuu wajiga ku xiranaya si tartiib ah ayaa Cumar Yacquub oo tukanaya oo sujuud ka soo kacaya waxaa la arkayaa in uu baangad ku bilaabayo marka ilaaliyaha masjidka ama security guardka waxa uu isku dayayaa inuu ka baxsado dhulka ayuu ku dhacayaa ilaa iyo 5 mar ayuuna baangada ku dhufanaya xitaa dhiig ayaa masaajidka laga arkayaa bustooladii u xirnayd ninka security guardka ayaa ka dhacaysa waxaana gacanta ku dhigaya ninkii weerarayay laakiin xabad ma uusan ku dhufanin markaas kadib markuu bustoolada gacanta ku dhigay ninka waardiyaha waxa u suura galaysa in uu baxsado oo banaanka uu u cararo xilligaas waliba xaaskiisa ayuu sugayay in ay qaado maadaama isagu masjidka uu xirayo oo qofka ugu dambeeyay uu ahaa marka maba iska waalinba ninkii weerarka u geystay ninka security guardka intuu ku laabtay meeshiisii ayuu dharkii iska bedelay bacda qashinka lagu riday oo madowda ayuu baangada iyo dharkii iska bedelay ku riday banaanka isagoo u sii baxaya ayaana boolisku ay qabteen waxaana uu sheegay in qashinkan uu doonayo in uu tuuro waxyaabihii baangada uu ku dilay ninka security guardka ayaana ku jirtay marka sidaas darteed ayaa la maxkamadeeyay xeerbeegti oo Collin County degmadaasi ayaa maxkamadeysay waxaana lagu helay inuu weerar u geystay iyo sidoo kalena hub inuu soo xaday oo baangadaasi halka uu ka keenay aan la ogeyn markii la xiray kadib qofkii kula jiray qolka xabsiga ayuu xitaa wuxuu ugu hanjabay in uu dilayo marka 50 sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay maalintii talaadada ahayd waxaana loo raaciyay 180 maalmood oo ah xaditaankii hubkaasi uu soo xaday marka Cumar Yacquub isaga nafsaantiisa maxkamadda marqaati ahaan ayaa loo soo istaajiyay dhaawacyadii gaaray ayuu wali ka soo kabanaya ilaa iyo 5 mar in ka badan ayuuna baangadaasi ku dhuftay ninkan la yiraahdo Malik Charles Anthony Davis haddana 50 sano ayaa lagu xukumay oo xabsi ayaa loo diray ugu dambeyntii isla gobolka Texas magaalada Dallas Fort Worth waxaa jirtay gabar asal ahaan Falastiiniyada laakiin dhalashada Mareykanka haysato oo macallimad in muddo ahayd gabadhan waxaa la yiraahdaa Shayma Al-Zubi marka waxaa maamule looga dhigay iskuulka ay macallimada ka ahayd oo la yiraahdo Western Hills High School ayaa horaantii bishii May maamulku waxa uu gartay in maamulaha iskuulka laga dhigo maamulihii iskuulka waa laga dhigay kadibna toddobaad kadib ayaa baraheeda bulshada gaar ahaan barteeda Facebook waxaa lagu arkay qoraallo sanado ka hor ay soo dhigtay qoraaladaasi waliba kuwa aad u daran ma aysan ahayn dhaqdhaqaaqii Black Lives Matter ka nolosha dadka madow macna ay leedahay inay taageereysay waxay taageereysay daaka dad caruurtan iyagoo da'yar wadanka yimid aan wali sharci helin laakiin loo ogolaaday in wadanka ay sii joogaan kana shaqeystaan iyo sidoo kalena xilligii coronavirus uu jiray in dadku maskaraati ay xirtaan qoraaladan ay ku taageereysay ayay ku arkeen barteeda Facebook markaas kadib maamulnimadii ayayba ka qaadeenba arintaasi darteed marka hadda maxkamad federaal ayay dacwada gudbisay waxay leedahay waxaan doonayaa xilkaygii maamulnimo ee iskuulkaasi in dib loogu soo celiyo inta waliba kiiskan go'aan laga gaarayo waxaana dacwadan ay ka gudbisay Fort Worth Independent School District oo ISD loo soo gaabiyo markaasi kadib ayaa waxa ay sheegtay inay doonayso xilkeeda in loo soo celiyo waliba inta kiiskan go'aan laga gaarayo gabadhan la yiraahdo Shayma Al-Zubi waxay tiri waxa lagu xadgudbay xuquuqdeeda dastuuriga ah qodobka 1 iyo qodobka 14 oo qofku xor u yahay in uu hadalkiisa cabiro isla markaana dhinaca sinaanta ayaa lagu xadgudbay sidaas darteed ayaana hadda waxa ay dalbanaysaa in xilkeedii dib loogu soo celiyo marka macallimiinta muslimiinta iyo waliba community-ga deegaankaasina aad ay u taageereen waxay yiraahdeen
in qof baraha bulshada sanado ka hor qoraal uu soo geliyey xil loo magacaabay in looga qaado arrintaasi macquul ma ahan waana kan mid ka mid ah dadkii taageerayay in xilkeeda dib loogu soo celiyo. I'm seeing the titles being about this principal, being charged because of her posts, and I think the real titles need to be that the board of managers is allowing right-wing influencers to be their HR. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina cilmi waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo.